nin saalixiinta kamida salafu hadhihi al-umma ayaa waxa culimadu ka sheekayaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yiri ama safar buu ahaa sahaydi baa ka go'day sahaydi ba laba beerood dhaxdooda isagoo hilin wadadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaax dariiqa iska taala oo qaatay oo gaajoonayay oo ka baday xabad tufaaxi markuu ka bado calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yiri xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuskii kale iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqeynay ku yiri beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiqo ku dhacay waan gaajoonay nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kana waa iska qabteen nuskan cunaha la iga cafiyay buu nuskana la iga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u tagi isaga hadduu kaa cafinay isaga taallaa hadduu kaa cafinay isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buu nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buu ilaa shuruud baan kugu xidhay haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma ka cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buu aqalka iga dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shanta arrimood ee ku sheegay leh haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska socod buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeelahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskayga aakhirahan la taga buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin oo aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nabi maxamed ee ahaa luqmad xaaraan qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankan waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraan ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaabni kale waan guursan buu yiri ma leega cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daayiman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan Soomaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ha ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan hadana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi hadaba mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa taqolka ku jirta way ku sugaysaay orada u galbu ka yidhi adigu hadaba waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlay wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad is hortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad ka ixtiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xoorul cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha ana qaldan oo qol kale ayaa soo galay maaya bay ku tiri zawjadaadii baan hay kala bay ku tiri markaasuu ku aabaha sidoo iigu sheegay si ka duwan bay u dhacday xantu waa xaraam bay ku tiri aabaha ya xaman waxa uu ka yiri aniga ii sheegana ku jawaabiye ma aragto igu yiri sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiyo ma aragto weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo
wax ilaahay nabi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikriga quraan iyo hadal annaka nagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay u ka cadhoonayo umay adeegsano lugaheega kumay marin buu yidhi sidaas waa bahay u jeedaa si kala hamoodin bay ku tiri waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu لا يحتصب ميلو سكفلين أي أرزاق دي لهاي كسيي بارتي بالسيي قبدي مال قبين كودلنا والله سي أعظم من هذا باللوحة كسي قيمة بدن وكسي وين نكا صالح ولقاها هي قبدا مطيعة هيدي أبيه دي هو يدي تلد أبيه هو يكو قوريسي إيه تلد أنا كسعون إيه تلد لبدا والد أقل كأفر دينا وحيكون عرتين لبدا قف مركز كو تجين إمام الله أعظم بيكون عرتين إمام حنيفة إمام الأعظم إمام نعمان بن ثابت إمام حنيفة إمام كأئمة دوران إمام كأوها إمام مالك نوح بري إمام مالك نو إمام شافعي وحسي بري شافعين إمام أحمد وحسي بري إمام الأئمة بالي هذا إمام الفقهاء شيخ هاسي قبردي ينكا صالحة مركي اسكت تجين ولقى إلهي علمي سمان تأدون كودن وبوحيي فقيها أها أيا إلهي لبدا قف كسر دحساري war walaalayaal lan yaray haddaan ilaahay ka cabsoonno oon ilaahay dhab u rumayno oo daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonayna nolosha adduunyada innakana laynooga dhigay علم القرآن الكريم في بيتك bishaaro bushul haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku